السلام عليكم وعليكم السلام. السلام عليكم وعليكم السلام. السلام عليكم وعليكم السلام. السلام عليكم وعليكم السلام. From the horn to the cove I stroll, the streets are paved with my soul. Nomadic by nature on a road, I've seen and heard it all. kusoo dhawaada dhageystayaasheeda qiimaha iyo qaayaha lahu meel kasta oo adduunyada ka joogtaan. halkani waa raadiyo Harwanaag oo aad aalaba ka dhageystaan website-ka caalamiga ah ee harwanaagnews.com ama shabakada caalamiga ah ee harwanaag.com. Assalamu alaykum wa alaykum assalam. Assalamu alaykum wa alaykum assalam. dhegeystayaal sidii aan horeba idinku ballan qaadnay waxaad mar walba naga heshaan barnaamijyada xiiso gelinaya. waxaa haddaba maanta studio-ga Harwanaag News ee carriga Ingiriiska nagu soo booqday siyaasi weyn oo xog badan ka haya qaabkii iyo dareenadii ay SNM u asaasantay. in badanna jeel u soo galay oo dawladii Maxamed Siyaad Barre ay jeel ugu soo xidhay oo in badan jeel u soo jiifay. siyaasigaas oo magaciisa la yiraahdo Cabdo Aayir oo hadda ku sugan waddanka Ingiriiska. Cabdo, bal marka ugu horeysa ku soo dhawow raadiyo Harwanaag oo aad nagu soo booqatay. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqayaa raadiyo Harwanaag oo aad iyo aad ugu dadaala in uu bulshada Soomaaliland ka qabtiro maalin walba halka xaal marayo siyaasadda guud ta dalka gudihiisa iyo ta mujtamaca bulshada dibadda ku dhaqan sidoo isugu xidhi lahaa aad iyo aad ugu dadaala. mahadnaq ballaaran ayaan ugu soo jeedinayaa. waxaan filayaa raadiyo Harwanaag iyo website-ka Harwanaag labaduba inay yihiin meelaha ugu badan ee ummadda reer Somaliland ay warka ka hesho dhageysatana aadna u xiisayso. saadarteed mahad ballaaran markii hore idiin soo jeedinayaa haddaad Harwanaagtiin idinkuna ammaanta uuna qaadanin ee dadaal badan sii sameeya oo dadka xogo badan u sameeyo oo kuwaas jiilka soo socda iyo jiilka dambe ha iskaadho taariikhdoodu oo ha isku xidhmeen. waxaan idin rajaynayaa inaad tihiin idaacad iyo website labadaba ahaanba mid ummadda reer Somaliland qayb weyn ka ah warbaahintiisa. aad iyo aad baad mahadsantahay Cabdo. aad iyo aad baad mahadsantahay. waana sii wadi doonaa hawsha adag iyo aanu dadka ku soo gudbinayno. Cabdo, waxaan maanta waraysigan ka qaaday bal marka hore horta wax sharaxaad naga bixisa. Cabdo Aayir dad badan runtii way ku garanayaan, dad badanna oo dhalinyaro ahina wax laga yaabaa inaanay ku garanaynin. bal taariikhdaada waxbarasho iyo halkii saad u soo barbaartay in yaro kooban ka bacdi markaa waraysigeenu geli doona haddii Ilaahay ka dhigay. anigu Cabdo Aayir haddaan ahay waxaan ahay jiilkii xilligii xornimada markii calanka la qaatay. inan yar baan ahaa runtii. markaasaa malcaamadda laygu daray. islama markiiba waxaan galay muddo 6 bilood ka bacdiya ayaa waxaan galay dugsigii hoose Baledhiig baan ka bilaabay. dugsigii dhaxana beer baan noqday. dugsigii sarena waxaan noqday sheekh baan galay. ka bacdi waxaan galay jaamacaddii Gahayr. ardaydii lagu furay iyadoo dhismuhu socdo ayaana lagu dul furo annaguna arday ka ahayn. xaqiiqdii maan dhammaysan Gahayr. waan ka tegey waxaan galay Carabaha. haddaan dalka Sacuudi Arabiya ayaan u badnaa 82 ayaan ku soo noqday dalka Somaliland ama Soomaaliya la isku oran jiray xilliga. dabeedna waxaa waqti xilligaana socday ololihii kacdoon ee gobolladii xilligaa la oran jiray waqooyiga Soomaaliya iminkana dalka Somaliland. kacdoonkii ka socday ayaan la kulmay waana la ii xidhay oo waan ku xidhmay. waayahay
waa lagu xidhay oo muddo dheer baad cabdo xidhnayd oo dalka raggii siyaasadda loo xidhay baad ka mid ahayd bal waxaad nooga sheekaysaa iyadoo dareenkaasi markaa jiray oo aad la kulantay markii SNM soo aasaasmaysay intaan la aasaasin adigu dareenkeebaad lagugu xidhay ama raada aad ku lahayd ama ku soo galayba markaa dowladdii maxamed siyaad barre hogaaminayay militariga ahayd ay kugu xidhay runtii waxay ahayd mid horta marka horeba dadka bulshada badideedu ay dareemaysay oo ay u dareemaysay xuquuqdeedii iyo jiritaankoodii dalnimo in wax badan ay ka maqnaayeen annagu markii kacdoonkii 1969 dhashay waxaan ahaa markaa fooman baan ka ahaa iskuul dugsiga sare ee Sheekh islaba 70kii kacdoon baanu arday ahaan samaynay waanu dareemaynay waxa uu leeyahay dawladda militarigii markay qabsata meel oo xilliyada Afrikana ku badnayd markii naloo wareejay xamar ee aanu dugsigii sare ka baxnay xalanaanu galay horta xalana dareenkayga ugu horeeya anigu aan dareemay in aan sidii si wanaagsan aanay u wadin maamulka xilligaa jiray maxamed siyaad barre oo uu ku socdo kala saar iyo qabyaalad iyo mashaakil waayo ardaydii loo qaatay military officialaha laga qaatayna laga dhex qaatay barkood inta la soo celiyo la safay iyadoo la weydiinayo leeyahay in walba xagaad dugsigaagii elementary ka soo bilowday si loo ogaado markaa miya reerkiisa iyo halka soo jeedo si reerkiisa iyo meeshu ka soo jeedo loo ogaado 250 inan baa inta laga saaray 250 inan suuqa laga keenay dareenka u horeeya ee aan wax dareemo horta halkaas uu iga dhashay markii aan Carabaa tigay ragodayaala oo Allah u naxariistay ugu weynaa Cabdiraxmaan Sheekh Cali Saciid ayaanu rafiiq badan noqonay Allah u naxariistay Muuse Bidaar dabeeto raggaasi waxay wadeen halkaasay 76kii ka bilaabeen olole khaasatan Cabdiraxmaan Sheekh Cali Saciid Duba Cali Yare Axmed Sheekh waa raggii ugu horeeyay bay ahaayeen ee bilaaba Buuba Ismaaciil Buuba waa ka mid ahaa xilliyada qaarkood gurigiisa lagu shiri jiray oo Taayif ku yaalay waan xasuusnahay horta halkaasan anigu bilow ahaan talaabada odayaasha inkastoo aan nin yar ahaayo aad iyo aad uga yaraa haddana rafiiq ahaan aan kala rafiiqo ka talaabada aan xilligaas ay ugu bilaabantay oo aan ka qaato markii dareenkaasi ku galay ee odayaashaasina ay dareenka ku jireen odayaasha Duba Cali Yare iyo lahaa Allah yarxamiye ma waxaad markaa ma islamto markaas halkaas Sacuudigana oo maxamed xaashi cilmi iyo Cabsalaan professor Cabsalaan iyo markaa ragga halkaas ay ka mid ah ma shabakada markaa halka dareenku ka jiray isku xidhmaysay baad ka mid noqotay oo lugta ku soo gashay xarig ku keenay taas xaqiiqdii horta laba qaybood bay ahaayeen qaybta hore odayaashaasi iyadoo ay sida hawsha u socoto oo raggaasi ay shiraan ayaa dagaalkii 77kii dhacay wajigii siyaasiga ahaa ee Soomaaliya wuu isbedelay 78kii dabeedna arrintaasi dib bay u yara shiiqday 78kii baa rag badan oo dalka ku sugnaa Sacuudi Arabiya oo Sheekh Yuusuf Sheekh Cali Madar ka mid ahaa Cusmaan Axmed Xasan uu ka mid ahaa waliba Cusmaan baa Jeerman uu ahaa odayaasha oo dhan xilliga in Sacuudi Arabiya la shirku ka socdeen Maxamed Xaashi Cilmi ka mid buu ahaa anigu dhalinyaraan ahaa runtii garabka dhalinyarada ayaan xilliga xogeeye ka ahaa arrimaha si hoos hoosana waa loo waday SNMna laguma dhawaaqin laakiin waa mararkii ugu horeysay ee aanu iska qabanno qaaraan aan ugu talagalno bixitaanka SNM 78kii kamid baan ahaa qaybta garabka dhalinyaradana xogeeyanka ah
waan gartay cabdo markii lagu xidhay maamulkii maxamed siyaad barre uu ku qabtay duruuf caynkee buu jeelkaasi lahaa iyo qabashadaadii xagga lagu qabtay ma magaalada muqdisho ka qabteen bal tafaasiil guud naga sii sawirkii adigoo soo koobaya qabashada iyo dareenadii ku xeernaa markaa waqtiga horta waan ku faraxsanahay runtii inaan noolahay maanta wax badan baan ogahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin